بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلنتي وعندا وضيال halkani waa wararka dalka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada wararkeena aan idinku haynana waxa kamid ah xog laga helay safarka madaxweynaha Soomaaliya ee uu ku tagay magaalada Qaahira ee dalka Masar Soomaaliya oo mar kale sheegtay inay taageersan tahay sharciyada Falastiin ee sameeyshada dawlad madax bannaan Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo weerar ku qaaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi wariye Coldoon oo shaac ka qaaday arrimaha lagu heystay cidda shirqooshay iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo ku baaqay dhismaha golaha culimada Soomaaliyeed qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa u diyaar garooba daawashada wararkaasi oo faahfaahsan haddii aan ku bilowno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo wafdu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Qaahira ee dalka Masar madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdu hogaaminayo ayaa gaaray dalka Masar halkaasi oo ka firmi doono shir laga arinsanayo xaaladda dalka Suudaan shirkan ayaa laga arinsanayaa xaaladda dalka Suudaan iyo sidii xal waaro looga gaari lahaa qalalaha siyaasadeed ee ka jira halkaasi madaxweynaha ayaa shir dacood la yeelan doona madaxda Afrika iyo mas'uuliyiinta dalka Suudaan ee ka qayb galaya shirkan isagoo la wadaagi doona mowqifka dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan garab istaaga iyo taageerada shacabka aan walaalaha ee Suudaan safarka madaxweynaha uu ku aaday dalka Masar ayaan hore loo shaacin waxaana safarkaasi ku helinaya xubno kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliyana waxa mar kale ay sheegtay inay taageersan tahay sharciyada Falastiin ee sameeyshada dawlad madax bannaan wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Mudane Danjir Axmed Ciise Cawad ayaa shir gudoomiyay kulanka gaarka ah ee golaha jaamacadda Carabta ee heer wasiir arrimaha dibadeed oo ay codsatay Falastiin laguna qabtay xarunta jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira iyadoo ka soo qayb galay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa shirkan oo qabsoomay maalintii Axad ahayd ka dhex sheegay in mowqifka Soomaaliya arinta Falastiin ay faro u tahay deganaanshiyaha bariga dhexe isagoo cadeeyay taageerada Soomaaliya ee sharciyada Falastiin iyo xaqqa shacabka Falastiin ee ah inay sameeyaan dawlad madax bannaan oo ku taagan xuduudii 1967 caasimadeeduna tahay Qudusta Bari Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa weerar ku qaaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa si farshaxnimo ka muuqato ku weeraray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo ka hadlaya muddo kordhin uu sheegay in loo sameynayo madaxweyne Biixi Professor Samatar ayaa ku micneeyay muddo kordhin loo sameynayo madaxweyne Biixi inay sameystaan dad aan nidaam dhisi aqoon oo uu ku sheegay dad dib u socda oo saaqiday sidoo kale waxa uu professorku ka hadlay golaha baarlamaanka Soomaaliland oo muddo xileedkeeda dhamaaday waqti hore isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri waxaan maqlayay qaar igu leh kullay Muuse Biixi waxa loogu dari doonaa 2 sano dad habsaamay oo saaqiday oo nidaam dhisi aqoon baan waxa si sameeya ayuu yiri Professor Ahmed Ismaaciil Samatar isla Soomaaliland wariye Coldoon ayaa shaac ka qaaday arrimaha lagu xiray isagoo markaasi faahfaahin ka bixiyay cidda shirqooshay wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa muddo ku sugan 6 cisho u xiran xukuumadda hogaamiye Muuse Biixi Cabdi wariye Coldoon ayaa 2 cisho ka hor la horgeeyay maxkamadda Hargeysa ee gobolka Maroodijeex iyadoo ciidankii soo qabtay ku amartay inay dib ugu celiyaan gobolkaasi Togdheer balse gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa isaguna soo saaray go'aan ah in dacwadda ka dhanka ah Coldoon lagu qaado maxkamadda gobolka Maroodijeex kadib markii xeer ilaalintu ku andacotay arrimo la xiriira dhinaca amniga wiil ay walaalo yihiin wariye Coldoon oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan ayaa warbaahinta u sheegay arrimaha lagu xiriir wariye Coldoon waxaana uu yiri waxay ka hor ayaan la hadlay Coldoon isagoo dhakhtarka jooga waxaana uu ii sheegay in ciidamadii maxkamadda geeyay ay ku ogeyn dambi ah in wax ka sheegay ciidanka Soomaaliland kuwaasi oo ku eedeeyay hadal uu qoray oo ku saabsan saraakiil tiro badan oo isku beela ka soo jeeda wiilkan la dhashay Coldoon oo la hadlay warbaahinta ayaa sidoo kale sheegay in wariyuhu uu beeniyay warar maalmihii ugu dambeeyay la isla dhexmarayay oo sheegay inay shirqooleen Coldoon labadiisa saaxiib ee uu wada shaqayntu ka dhaxaysay sidoo kale Cabdiraxmaan ayaa sheegay in xukuumadda Muuse Biixi ay ciil badan u qabto Coldoon kaasi oo ku tilmaamay talaabadan xarigiisa mid ay xukuumaddu ku aarsanayso si kastaba gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa markii loo horgeeyay wariye Coldoon sheegay in aan wariyaha xarigiisa loo marin sifa sharci ah oo aysan haysan amar qaadasho oo ay ku soo xireen ciidankii soo qabtay militariga dalka Suudaan ayaa digniin adag siiyay dadka wali dibadbaxyada ka dhigaya dalkaasi militariga la wareegay talada dalka Suudaan ayaa digniin u diray dadka dibadbaxyada wali ka wada dalkaasi iyadoo amar ku siisay inay jidgooyinka ka qaadaan wadooyinka caasimadda Khartoum
militarigu waxay shacabka u sheegeen inay banneeyaan wadooyinka si xaaladda amniga magaalada loogu soo celiyo. madaxa golaha militariga Suudaan General Fataax Cabdiraxmaan Burhaan ayaa sheegay in dhibaatada dibadbaxyada aan lagu sii jiri karin ayna tahay in la soo afjaro. dibadbaxyaasha ayaa ku sugan afaafka hore ee saldhigga militariga ee Khartoum waxayna codsanayaan in xukunka lagu wareejiyo dowlad rayida. hogaamiyaasha dalka dibadbaxyada wada waxay sheegeen inay hakiyeen kulan ay yeelan rabeen militariga si looga wada hadlo helidda dowlad rayida. waxay ku eedeeyeen in maamulka ay weli ka tirsan yihiin dad horey uga tirsanaa dowladdii uu hogaami jiray Cumar Xasan al-Bashiir. militariga waxay sheegeen inay ka go'an tahay sidii xukunka ay ugu wareejin lahaayeen dowlad rayida, islamarkaasina waxa ay ku adkaysteen inay mas-uuliyaddoodu tahay sugidda amniga. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ku baaqay dhismaha golaha culimmada Soomaaliyeed. ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo ka qayb galay shirweynaha culimmada Soomaaliyeed ayaa ku boriyay culimmada inay aasaasaan golaha culimmada u diinka Soomaaliyeed. wadada uu shirka ka jeediyay ayuu ka sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenku in culimmadu weligeed ay door muhiim ah ku lahayd aasaaska horumarinta iyo hagidda dhaqanka ummadda Soomaaliyeed, haddana laga doonayo iyaga oo midaysan inay kala shaqeeyaan dowladda dhismaha dowlad wanaag iyo hirgelinta dastuur heshiis lagu yahay oo aasaas u ah shareecada Islaamka. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay inay dalka ka jirto dhibaato amni oo salka ku haysa afkaar qaldan, sida keliya ee lagu guuleysan karaana ay tahay in culimmada iyaga oo wadajir ah ay doorkooda ka qaataan oo ummadda u sheegaan dhibaatada uu leeyahay fikirka xagjirnimada ku salaysan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa furay shirweynaha culimmada Soomaaliyeed oo looga hadlayo kaalinta culimmada Soomaaliyeed ee geedi socodka amniga iyo dib u heshiisiinta dalka ayna ka soo qayb galeen culimo u diin Soomaaliyeed. gudaha daawadayaal saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. inta warkan kiisi xiga aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.